geedka loo yaqaano moringo wuxuu uu leeyahay ama uu ka kooban yahay in badan nafaqooyin kala duwan sida amino acidyo sidoo kale macdano minerals vitamino iyo kuwa difaaca jirka aad u ilaaliya geedkan waxaa lagu sheegay cilmi baaris badan marka la sameeyey inuu yahay geed mucjiso ah taasoo caafimaadka jirka waxtar badan u leh qofka soo dhawaada saaxiib yaal waa aniga waa Dr. Maxamed Liibaan Maxamed inta aan barnaamijkayga furin waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh like follow subscribe ka YouTube channelkayga iyo Facebook page-kayga inaan laga baqiilin lana hilmaamin sidoo kale wixii su'aal iyo talo iyo aragti hadii aad idmo waxaad iga soo weydiin kartaa addresskayga adigoo aad ka heli kartid YouTube description-ka iyo Facebook page-kayga geedka loo yaqaano moringo waa geed mucjiso ah warbixino badan iyo cilmi baaris badan marka lagu sameeyay waxaa lagu sheegaa inay ku jiraan all essential amino acid dhammaan macdanaha uu jirka u baahan yahay kuwooda ugu xooga badan sidoo kale geedkan waxa uu leeyahay in badan vitamin A xaddi badan inuu ku jiraan afar jibaar karootada vitamin A ga laga helo in geedkan uu ku jiro mirihiisa ama caleentiisa sidoo kale geedkan 7 jibaar vitamin C ga aan ka helno liima dhanaanta ama liima oranjada in uu ka badan yahay xaddiga ku jiro vitamin C geedkan moringo sidoo kale geedkan wuxuu uu leeyahay iron aad u badan ama birta oo jirka uu ka sameeysto hemoglobinka xaddi badan lagu sheegay 25 mar inuu ka tiro badan yahay ironka laga helo koostada sidoo kale bagalka sidoo kale kabashka inuu kaga badan yahay geedka moringo sidoo kale geedka moringo waxaa la ogaaday 4 jibaar caanaha calciumka aan ka helno inuu asaga uu ka badan yahay geedkan sidoo kale geedkan potassiumka aan ka helno mooska 7 jibaar inuu geedkan uu asaga uu aad ugu badan yahay waxyaabaha ugu horeeya uu manaaficaadi u leeyahay geedka moringo waxaa ka mid ah difaaca jirka inuu kor u qaado habwareega dhiigga unugyada qaabilsan dhiigga gaar ahaan kuwa loo yaqaano lymphatic immune systemka inuu ka qayb qaato inuu geedkan isticmaalka markuu qofku isticmaalo in xaddiga difaaca jirka mar walba uu kor u qaato waa sababta ah in vitamin A E iyo C ay ku jiraan geedkan oo ah kuwa difaaca jirka mar walba ilaaliyo sidoo kale geedkan waxyaabaha kale uu ka qayb qaato waxaa ka mid ah isku dheelitirka glucose-ka ama sokorta ay u baahan yihiin muruqaha in jirka uu isticmaalo geedka moringo in insulin uu qaadayo insulinka dhacaanka uu qaadayo sokorta una gudbin karo muruqaha iyo energy laga sameynayo taasoo aysan ku hareenin sokor badan xididada inay dhex fadhido faa'iidooyinka uu leeyahay iyo manaaficaadada geedka dadka sokorta qabo uu yeesha ayaa lagu ogaaday cilmi baaris badan la sameeyay sidoo kale geedkan dhanka iyo maqaarka ayuu faa'iidooyin badan u leeyahay wuxuuna ka hortagaa waxa loo yaqaano aging geedkan wuxuu uu kowsaday vitamin A vitamin C iyo vitamin E kuwaasoo inta badan kor u qaada habshaqeynta iyo quruxda maqaarka wuxuu ka hortagaa in maqaarka haare ay ku sameysmaan sidoo kale in wajiga ay ka soo baxaan agna ama nabraha yaryarka loo yaqaano vindobka sidoo kale geedkan aad wuxuu u anfacaa habwareega dhiigga dadka la nool cholesterolka ama dhiigkarka inuu ka caawiyo in xididadoodu ay ku yaraadaan wasaqda ama dhagaxaanta cholesterolka ay ku sameysmayaan habwareega dhiigga sidoo kale geedkan waxaa kaloo la ogaaday inuu aad u anfacayo dadka faadkoodu aad ku badan yahay ama cayilka aad u badan yahay cilmi baaris badan ayaa waxaa lagu ogaaday in geedkan isticmaalkiisa qofka markuu isticmaalo in uu ka yareeyo dufanta badan ee jirkiisa ku keedsamayso isticmaalka geedkan qofka markuu uu daa'imo waxa uu sameeyaa loss of weight miisaankiisa hoos u rida taasoo wixii dufan ah iyo wasaq ah uu ku sameynayo detoxification inuu jirka uu ka saaro sida guud geedkan wuxuu kaloo uu aad u anfacaa xididada muruqaha iyo kala baxyada kuwaasoo qofka uu ka dareemayo in caabuqyo ay ugu sameysmaan sida inflammation inuu ka dilaaco ama barar uu jiro maadooyinka uu geedka uu ka kooban yahay antioxidantska iyo calciumka iyo magnesiumka iyo ironka ayaa waxay ka ilaalinayaan in meelahaas caabuqyo ay ku sameysmaan difaacooduna uu aad u saramaro sidoo kale geedkan wuxuu kaloo uu aad u anfacaa dhanka iyo dadka energy-ga sameynaya maalinkii sida bodybuilderska dadka miisaankoodu ama jimka ku jiro inay isticmaali karaan waxa ay ka helaan
energy tamar saa'ida taasoo u arkayo qofka inuu yahay firfircooni aad u soo gelisa jirka sida guud geedkan faa'iidooyinkiisa lama soo koobi karo insha Allah halkan ayaan ku joojinaynaa ama waxaan idin leeyahay aad iyo aad u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh